بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندي سلام يا دمان انت كحرنا موي ميديا جروب. وانا جو ابورق عبد الله ابورق بالشاي رمضان مبارك صوم مقبول بندي لنا هي دمانتين. waxaan maanta ka hadli doonaa fadliga ay leedahay aamusnaanta. qabar ayaa laga soo wariyay in nabigeenu sallallahu alayhi wasallam uu maalin waayay nin la oran jiray Kacab markaasuu dadkii weydiiyay oo yiri ninkaas yaa ka warhaya markaas baa loogu jawaabay uu bukaa ninkaas. markaasuu nabigu baxay isagoo soo booqanaya markii uu soo galay ayuu yiri Kacabow bishaarayso. dabadeed Kacab hooyadii ayaa tiri Kacabow tahniyad ayaan kuu soo dirayaa jannada ku bishaarayso maadaama nabigii ku bishaareeyay. dabadeed nabigeena ayaa yiri waa tuma gabadha rajada wanaagsan ku muujinaysa xagga Allah. Kacab ayaa yiri nabi Allah waa hooyadii. dabadeed wuxuu yiri xabiibku oo maxaa ku geysay islaantay laga yaabo Kacab inuu yiri hadal aan macno lahayn ama uu diiday xoolo aan qani ka dhigi doonin. sida ka muuqata xadiiskan qofka si kastoo uu wanaagsan yahay haddana waxaa suuragal ah in hadalkiisu aanan u fiirsan ama sadaqada oo uu bixin waayo inay wax u dhimayso wanaagiisa. haddaba walaal ma tahay qof afkiisa ka adag is ilaaliya mise waxaad ka hadashaa wax kasta. walaalayaal waxa kale oo laga soo wariyay in cibaadadu tahay 10 qaybood ama juz 9 kamid ah waxay ku jiraan aamusnaanta. waxaan ka fahmaynaa hadalkan sare in ay aad u muhiim tahay in qofku is ilaaliyo si cibaadadiisu 9 qaybood uu u badbaadiyo. waxay yiraahdaan dadka xigmada leh qofka carabkiisa uu ilaashada Ilaahay dartii Ilaahayna wuxuu ku abaalmariyaa maalinta uu geeriyoonayo qofkaas ayaa shahaadada Ilaah u fududeeya carabkiisa. qofka carabkiisa ilaashan waaya ee daaqgeeya sharafta dadka muslimiinta ah awradooda ka sheekeeya oo raacraaca Ilaahay maalintaas qofkaasi markuu geeriyoonayo ayaa carabkiisa loo diidayaa in uu ashahaato. xasbunallah. xadiiska nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam qofka hadalkiisu bata dhacdhaciisu bata qofka dhacdhaciisu batana dunuubtiisa badata qofka dunuubtiisa badatana naarta ayuu xaq u leeyahay. Mu'adh ibn Jabalna wuxuu weydiiyay nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam amalada kuwa ugu fadli badan. nabiga sallallahu alayhi wasallam carabka intuu soo saaray ayuu yiri kaas iska ilaali. Ali ibn Abi Talibna wuxuu yiri wiilkiisa xasanow carabkaaga ilaasho waayo qofka qasaarihiisu waa wixii uu ka yiraahdo carabkiisa. walaalayaal waxaa kaloo xusid mudan in la ogaado in qalinku yahay labada carab midkood wax kasta oo qofka ku qoro oo xumina uu ka sii dambi badan yahay waxa uu ka hadlo qofka waayo qoraalku ma baaba'ayo xataa qofka hadduu dhinto wixii xumaa ee uu qoray way ku soconaysaa dambigiisa. walaalayaal aan ilaashana carabkeena iyo qalinkeena. maanta xaaladda aynu ku jirnay iyo carabkeena bal ka warrama waxa xaalkeena noqday waxa la yiri iyo wuxuu yiri iyo nacayb iyo aflagaadeyn ayuu xaaladdeena noqotay. iyo isfadeexeen ugu dambeyn walaalayaal Ilaahay hayna asturo aakhiriya adduunkaba carabkeena haynoo ilaaliyo. mahadsanid. haddii ay tahay markii ugu dambeysay ama markii ugu horeysay muuqaalkan inta daawatay aadan subscribe